su-aasha isweydiinta le markaa ma aha nebi maxamed weynayntiisa kama hadlayno qofka muslimka ee ka doodana uu ku gaaloobaya waadix soo taasi maaha qofka muslimka ee nebi maxamed weynayntiisa ka dood geliya uu ku gaaloobaya waa maxay markaa cilladu xaggee ka jirtaa cilladu waxay ka jirtaa maalintaa in la xusaamo tahay qaab loo weynaynayo waa isku wada fursanna inaynu weynayno laakiin qaababkii layna faray inaynu nebiga u weynayno maalintaa in la xusaamo ku jirtaa nebigu inooma sheegin isaguna ma xusin saxaabadii la joogtayna ma xusin taabiciintii ka dambaysana ma xusin madaahibta afarta ah culammadaynu ku naqaanayna may xusin haddaa xagee ka timi waa dambey muslimiinta badh ay la yimaadeen taarikhyahanada badh imaam almaqrizi fii kitaabihi siduu ku qirinayo waxay soo bilaabantay bay ku tilmaamaan dowla alfaatimiya markii ay joogtay masar dowladdii ka talinaysay cubadiyiinta la odhan jiray ee qolo shiica ahayd ayaa waxay keentay 6 mawlid 6 birthday mawlidku waa birthday 6 birthday in la xuso nebiga calayhi salaatu wasalaam cali ibn abi aalib faatima xasan iyo xuseen iyo boqorka shantaa inuu noqdo waxa la xusaya lixdaa inuu noqdo waxa la xusaya dowladdii shiicada ahayd baa la riday markii la riday nimankii meesha qabsaday waxay dhahay war shanta shiicadana inaga tuuro nebigana iska xusno shantiina way ka tageen kanna way xuseen culammada wakhtigaa wixii ka dambaysay waxay isweydiiyaan war mas'aladani ma ka mid tahay wixii diintu inoo sheegaysa mise kama mid aha culamada badh waxay idhahdeen war dhibi kuma jirto haddii nebiga la xuso waa kaasi culamo badanina waxay leeyihin war ruuxani ma soo garan laakiin anigu hal kalaan kuu sheegayaa waxaasoo dhan ka baxsan haddaad maqasho mas'alada nebigu ma samaynin ama saxaabadii ma samaynin kama samaynin su-aal baan ku weydiinaya nebi maxamed siduu alle u caabuday si ka badan miyaad u caabudi karaysaa maalintaad intii nebi maxamed uu sameeyey dhammayso aan isugu nimaadna bidaca markaa socakaa maaha maalintaad intii nebi maxamed ka adkaato aan isweydiinna waxaa soo hadhay ma bannaantay mise ma bannaana laakiin intiiba haddaanad haynin waxba bidaca ka warramay idan nebi maxamed maalin ha u yeeline maalin walba ku salli inaad sanadkii maalin sugto oo tidhaahdo maalintaasaan ku sallinaya maalinta tan dhan kale markaynu ka eegno ma la garanayaa maalintuu exactil nebiga ku dhashay taariikhdii carbeed ee hore waxay u dhigantahay sidii taariikhdii soomaalida soomaalidu baadiya ku dhalataa siday u calaamadsan jireen laba wax bay calaamadsan jireen toddobaadka maalintay ka dhashaan way calaamadsan jireen oo waxaad maqlaysaa hebel isniin buu dhashay iyo khamiis buu dhashay iyo jimcu dhashay iyo axad buu dhashay soo taa soomaalidu ma laha way calaamadsan jireen waxay kaloo calaamadsan jireen gugii ama dayrtii la dhashay wixii jiray gugii reer hebel lagu duulay gugii hebel dhintay gugii dayrta badnaa gugii cayn ayaa la calaamadsan jiray carabtii jaahiliyaduna saasay ahayd nebi maxamed markuu dhashay calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay maalintuu dhashay iyada wuu sheegay isniin baan dhashay buu yidhi isniintana wuu soomi jiray isniinta iyo khamiisahana wuu soomi jiray markaa wuu sheegay inuu isniin dhashay sanadkuu dhashiyo bishuu dhashay cidima garanaysaa sanadkii waxa la yidhi sanadkii maroodigu maka ku soo duulay buu ku beegnaa marka waa sanadkii maroodiga markaa taariikhda la raadinaya war sanadkaasi halkuu kaga beegnaayo halkaasuu ku beegnaayo halkaasuu sanadkii maroodiga ugu dhashay ayay culammadu yidhahdeen bisha ma la garanayaa waxay yidhahdaan waxaa loo filaya inay tahay bisha rabiicul awal maalintana isniinta rabiicul awal qolo waxay yidhahdeen 12 ahayd taarikhyahanada hadda jooga waxay leeyihin markaa dib loo baadho 12 isniinba maaha nebiguna wuxuu yidhi isniin baa dhashay soo maaha haddaad dib u raacda bay leeyihiin 12 isniin mahay see la yeelaya axad alxufaad wuxuu leeyay war 9 ahayd culamo kale waxaa qabtaa 8 marka maalintan 12 waa ashharul aqwaal waa warka ugu caansan ee taarikhyahanadu ay qoraan laakiin exactly inay ahayd maalintaasi xataa maalin la isku waafaqsanyay maaha soo duuduub hadday tay nebiga weynayntiisa maalin walba weyne 12 rabiicul awal ha sugine sanadkoo dhan weyne maalin kasta ku salli maalin kasta waxaad u samayn karta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam u samee hadday tahay maalintaasi miyay diinta ku soo aroortay waxa dilla ammaan arag anugu wallahu aclam